ستريم ويجي افلام تفهم بروج افلام اوكلي كوبايكي maxaa kaloo ku sidar meesha wow live tv ستريمنكس waxa kaloo ka daawan kartaa aflaamta Hollywood Turkish iyo waliba cartooniska ستريمنكس waxa kaloo u sidar silsilada waayaan laga daba dhacay silsilada Turkida Hindida Mareykanka iyo qaar kaloo badan ستريمنكس dhalinyarta sportiga ah waxay kaloo u diyaarisay kanaalooyinka sportska ahaa sida kanaalooyinka Bein Sport, Sky Sport, Super Sport iyo qaar kaloo fara badan hadaba ستريمنكس waxaad kala soo degi kartaa Google Play Store, Apple Store iyo waliba Android TV ستريمنكس waxay caan ku tahay idegso isla hadda idaawo kaloo soo booqo website-ka streamnexus.tv wixii macluumaad dheeraad ah nagala soo xiriir telefoon nambardan shaashada kuugu qoran السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلاتو وعانا وناكسان دمان صاحبة كوحنا جانا كسمنا كستو official فضلا جانا كدية تيمركا كوريس وصوبة وتجانا كسبسكرايب نوصار كمبلل كنفرو سيمر كستاكوسو كاران مقالة حساب بدنا كان كوسو قد بنا هدي أدهرون وجكت جانا كمسيدو كل مقال كليك نوصار سيدو كل نسيشر كريسيو مقال كوكار صاحبة بدنا وانكم ما سنتاي برنامج كلمات وحكوسو قارنا أفلام دورا كويس ومركا سيوين لو سوغا دانكاسيو فيلم هذا كوفور هندية ومركا نقضي فيلم هذا وحساب بدنا مركا لداو دانكاسيو فانك هندية sidoo kale waxay noqday filimada ugu saameynta badan sanadka 2020 waxaana guushaas gaarsiiyay filimada caanka ah sidoo kale KGF Chapter 2 iyo filimkii Triple R iyo sidoo kale filimka Pushpa hogaamiyay Allu Arjun sidoo kale filmo xiiso badan ayaa lagu dhawaaqay markaan noqon doona Pan India movie markaas laga leeyahay fanka Koonfur India ama dhankaas Koonfur India filmo lagu dhawaaqay markaan inay noqon doonaan filmo Koonfur noqon doona Pan India movie iyo sidoo kale caalamka idin laga daawan doono haddii aan ku horeyno filimka lagu magacaabo Dhamaka hogaamiyay ka yahay أكتر كلا وجعل يا لينك لو مقع حركة رفيتيجا فيلم كانوا فيلم حساب بدن رفيتيجا كو حركين أيو سو كلا أكتر كلا أنت بدن محلو يقانا فيلم هذا مركز دور هذا كانوا كقاطو بس أكتر كلا بدي سي فيلم قدام بيوحنا نقول له فيلم ومركز كفش الماء هذا نقول له فيلم كي خلادي ومركز هوران تسانس كلا وكنا ليلة تصبح حي كاسو كنا نقول ديساستر وين سو كلا وحوي فيلم كي سرعة مرة أون ديتي ولا دعوة سجلة تكشلي كاس نوح كنا نقول فيلم فلو وبربري ومركز تياتر كسو حري جناعسي يرو مركز ليتا sidoo kale actorkan wuxuu ku jiraa soo laabasho aad u adag maadaama filimada isugu dambeeyay noqdeen filmo aad u xanuun sidoo kale sheekadiisa aad loo liiday filimada bas hadda xidigan wuxuu ka fikiraya sheekada marka uu dooranayo sidoo kale directorada marka la shaqeynayo sidoo kale xidiga filimada weyn ay soo hadeen noqon lahayd filimkiisa Rafasura oo la daawan doono sanadka 2023 iyo sidoo kale filimkiisa Tiger oo noqon doona Pan India movie iyo sidoo kale filimkiisa oo marka la soo wado xidiga caanka ama megastarka caanka ah Jiranjifi filimkaas oo loogu yeero Mega 154 xidigan saddex filim waaweyn oo diyaarsan iyo hadda filimkiisa lagu daro Dhamaka oo la daawan doono dabiiqada sanadka 2020 filimka shaqadiisa waa ay bilaabantay waxa ka bilaabatay dhankaas iyo Hyderabad ama xarunta fanka loo yaqaan Tollywoodka xidigan filimkan waxa lagu daawan doonaa si shaac laga qaado luqadaha kala duwan ee Tamil iyo Telugu sidoo kale filimkan waxa tirshay ku adkaa xidigta lagu magacaabo Srilela oo inta badan ka soo muuqata filimada Telugu filimkan wuxuu isku jirjooraa film action iyo marka film action ay filimka inta badan u badan yahay sidoo kale filimkan waxa rating ama director qoray ninka lagu magacaabo Trina Row oo marka inta badan filimada sameeyay dhankaas Telugu sidoo kale actorkan waa sheeka ama qora inta badan wuxuu qoraa filimada sheekadooda sidoo kale dhanka agaasinka ama directornimada inta badan waa qabtaa hadda labada filim shaqadooda isaga ayaa isku qabtaya ama isku qabanaya sheekada qoraya sidoo kale directorna ka noqonaya doorka hogaamintana wuxuu ku aaminay subtitleka caanka ee Rafiteja sidoo kale filimkan wuxuu ku noqon doonaa film comeback marka ku soo noqonaya tiyaatarada actorkan inta badan waa laga jecel yahay fanka Tollywoodka sidoo kale filimadiisa bilaabo shahar sare la yimaada sanadii 2021 actorka filimkiisa iyo Crack wuxuu noqday film superhero oo marka tiyaatarada ganacsi lixaad laga sameeyay sidoo kale gool weyn ka gaaray sidoo kale filimka hadda shaqadiisa waa socotaa filim sidoo kale filimka saddex bilood marka foodan uu saaysan waxa laga yaabaa shaqadiisa la soo gabagabeeyo in marka filimka la daawado bilaha December iyo January waxay u baahan tahay bisha December in filimkan qorsheeyo in la daawado sidoo kale filimkan waxa laga soo bandhigay teaser yar oo kooban ama ku xarakeynaya ama ka soo muuqday gabadha lagu magacaabo Srilela iyo ninka lagu magacaabo Rafiteja teaserkaas ama gooskooskaas kooban ka soo muuqday sidoo kale gooskooskaas aad lagu amaanay Rafiteja asxaabta filimkan waxa ka soo kordhana way la socodsiin doonaa halkan kala socdo filimka ka soo kordha filimkeena xiga waxa ku soo qaadanayna filimka lagu magacaabo Fathi oo hogaamiye ka yahay xidiga la wada jecel yahay Danush sidoo kale filimkaas Samik Chamenon ayaa ka soo muuqan doonta xidig marka inta badan ka soo muuqata filimada Koonfur India halka Say Kumar oo rugcadaan dhankaas laga dambeeyay fanka Telugu oo filimka ka soo muuqan doono waa filim ku soo laabanaya xidiga ama la jecel yahay Danush tan iyo filimkiisii Digital Balam oo la daawaday 17 August 2020
filimkaas oo tiyaatarada ka noqday super hit haddana filim cusub ay actorkan ku dhawaaqay sidoo kale filimka wax lagu magacaabo Fathi sidoo kale qorshe wuxuu yahay in marka la daawado December 2020 actorkan waqti fiican ay ku jiraan maadaama filimkiisa ugu dambeeyay noqday filim super hit sidoo kale lacag fara badan ka soo xaray dhanka tiyaatarada sidoo kale dhanka Tamil marka filimada ugu dambeeyay wax noqonaya filmo classic oo marka sheekadu aad loo amaanada noqon lahayd Firumaan oo la daawado Agosto 11keedii sidoo kale waxa ku soo xigay Three Plan kaas oo noqday super hit sidoo kale waxa ku xigay filimkii Cobra oo marka sheekadiisa aad loo leeyay sidoo kale Tamilkaas lacag fara badan tiyaatarka ka helaya marka ku ciyaaray sidoo kale filimkaas waxa noqday filim burburay hadda filimka waxa la sugayaa Fathi oo marka hogaamiyay Dhanush oo ku soo laabanaya sidoo kale filimka luqadaha Tamil Telugu ayaa lagu daawanaya actorkan inta badan isma dhigo marka filmaantiisa lagama daawo dhankaas waqooyi Hindiya taas inta badan waxa uu baray aturaasha marka riski sidoo kale filimka Cobra oo marka fikra hogaamiyay ka riska soo baray filimkaas lacag fara badan ayuu lagu iibsaday bal actorkan waxa lagu daawanaya dhaxalka jecel dhankaas Tamil sidoo kale filimkaas waxa lagu daawanaya luqadda Telugu oo marka Telugu ayaa lagu daawanaya labada luqad filimka bas ayaa lagu daawanaya halka filimkan director-ka yahay Vinkay Athuri sidoo kale filimkan producer waxa ka ninka lagu magacaabo Nawa FMCNC sidoo kale shirkadda lagu magacaabo Sita Entertainment filimkan waa maalgelinaysa sidoo kale filimka waxa laga soo bandhigay dabiiqada sanadkii dabiiqada bishii hore teaser yar oo kooban sidoo kale filimka Dhanush wuxuu ku matalayaa macallin ama lagu magacaabo Bala Morgan ayuu filimkan macallin ayuu ku matalayaa filimkan waana filim xiiso badan actorka lagu magacaabo dhanka jilinka waa fari talented actor oo marka la joogo fanka Tamil sidoo kale xidigan sanadkii bishii July wuxuu ka soo muuqday filimkii Hollywood-ka ahaa The Gray Man ayuu ka soo muuqday sidoo kale waxa la sheegay shacay laga qaaday filimkii The Gray Man qaybtiisa labaad inuu filimka Dhanush door adag ku yeelan doono door saameyn badan filimkaas kaga soo muuqan doono qaybtiisa labaad shirkadda Netflix ayaa ku dhawaaqday in The Gray Man uu ka soo muuqan doono xidiga lagu magacaabo Dhanush sidoo kale saameyn ballaaran oo ku yeelan doono taasna actorkan waxa uu tahay guul weyn maadaama marka ay soo dalbadeen shirkadda ugu weyn marka la joogo fanka ama fanka filmaanta sameeyay hadda noqon leh Hollywood-ka waa shirkadda ugu weyn marka dhanka la joogo waqooyiga America sidoo kale filimka actorka mashaariic fara badan ayaa u diyaarsan oo daawan doono sanadka 2023 iyo 2024 balse hadda filimkiisa Fathi ay ugu soo la daawan doono December 9 2020 actorkan waqti fiican ayuu ku jiraa maadaama filimada isugu dambeeyay noqonaya filmo classic hadda noqon lahayd filimkiisa lagu amaanay actorkii la daawaday horaanta namaadkii 2021 oo kala soo muuqday xidiga ama subsaarka caanka Akshay Kumar filimkaasna bandhig aad cajaa'ib badan actorka ka sameeyay sidoo kale waxa la amaanay actorkan door walba inuu qaadan karo sidoo kale waxa ammaan bala loo soo jeeday filimkiisa ugu dambeeyay Thiru doorka uu qaatay haddana taageerayaasha actorka lagu magacaabo Dhanush waxa sugu laayeen filimkiisa lagu magacaabo Fathi xilliga laga soo bandhigi doono trailer-ka ama gooskooska saxda marka laga soo bandhigi doono asxaabta inuu soo gudbinayo wixii ka soo kordha filimkan halkan kala socda wixii ka soo kordha markana waxa aan dhankaas fanka Bollywood-ka sidoo kale fanka Bollywood waqti xun ay ku jiraan maadaama filimada ugu dambeeyay noqonayaan filmo falooda balse hadda filimka lagu magacaabo Brahmastra ayaa dib u soo celiyay sidoo kale filimka waxa lagu dhawaaqay filimka cusub lagu magacaabo Dookha hogaamiyalka yihiin Arma Dhafaan halka uu kala soo muuqan doona Abhishek Khurana iyo gabadha lagu magacaabo Khushali Kumar xidintan oo marka fanka ku cusub sidoo kale la dhalatay ninka lagu magacaabo Bhushan Kumar oo T-Series madaxwa filimkan waxa maalgelinaysa shirkadda lagu magacaabo T-Series oo marka iska leeyihiin Bhushan Kumar iyo Khushali Kumar qoyska Kumar ayaa iska film shirkaddan isla filimkan ayaa maalgelin doona sidoo kale Khushali Kumar ayaa filimka tirshik waa loo dhigay halka Abhishek Khurana iyo ninka lagu magacaabo Arma Dhafaan filimka door xiiso badan ay ku leeyihiin sidoo kale hogaamiyaasha filimkan ay yihiin sidoo kale filimkan maanta waxa laga soo bandhigay teaser ama trailer sidoo kale hore waxa laga soo bandhigay teaser kooban oo markaa xaysiin loogu sameeyay filimkan sidoo kale maanta waxa lagu soo dhawaaqay in laga daawan doono trailer oo markaa barta T-Series ay ku leeyihiin barta YouTube-ka ayaa filimka laga soo bandhigay gooskoos xiiso badan sidoo kale sida filimka ku muuqata trailer-ka ama gooskooska markaa Abhishek Khurana filimkan ku matalay Ladar sida markaa ka muuqata gooskooska marka laga soo bandhigay maantay halka gabadha lagu magacaabo Khushali Kumar ay markaa tahay filimkeeda ugu horeeyay markaa ka soo muuqan doonto sidoo kale filimka waxa shaac laga qaaday 23 September markaa tiyaatar lagu soo fasaxi doono waxaana isku dhici doona filimka lagu magacaabo Job the Revenge of Tatis kala soo ka soo muuqan doonaan Dalkuur Salmaan iyo xidiga lagu magacaabo Sunny Deol labada film ay isku dhacay 23 September labada umar oo ay markaa isku dhacaan sidoo kale filimka waxa laga yaabaa in dib loo dhigo marka bisha October loo weeciyo sidoo kale laba film markaas in isku dhacaan xilliga ama waqtigan ay ku jiraan dhankaas fanka Bollywood-ka waa mid aad u xul maadaama fanka Bollywood-ka markaa ku jiraan caqabad aad u weyn oo markaa filimada ugu dambeeyay noqonaya filmo falooba sidoo kale labada film ama filimka loo magacaabo Dookha in markaa waxa laga yaabaa in marka la geeyo bisha October ama dhamaadka September in filimka loo wareejiyo ama hal asbuuc ka bacdi marka dib loo dhigo asxaabta filimka Dookha intaas ay ku cusub wax la daawan doona sida shaqada laga qaaday 23 September balse waxa laga yaabaa in dib loo dhigo filimkan sabab jira awood
wixii kasoo kordhana filimkan waa la socodsiin doonaa iyo haddii markaa dib loo dhigi doono haddii markaa xilliga la daawan doono. sidoo kale muuqaalkan waxaa kusoo qaadanayna xidiga lagu magacaabo Dhanush ayaa baryahan ku dhawaaqaya filmo isku xiga oo markaa la daawan doono sanadka 2020 iyo sanadka 2023. actarkan wuxuu noqday actarka ugu saameynta badan marka dhanka filimada la sameynayo sanadka 2020. sidoo kale filimkiisa xigu ku dhawaaqay Nani Farufeen oo markaa la daawan doono 2020. sidoo kale filimkan qorshuhu waxa ay in la daawo September 7 ama 2 toddobaad kadib in filimka tiyaatarada la saari doono, balse ma aysan dhicin. filimka shaqo ayaa markaa weli ku harsan. sidoo kale waxaa kasoo muuqan doona gabadha lagu magacaabo Induja Rajvitan. sidoo kale shactirada caanka Yogi Babu filimkan oo kasoo muuqan doona. filimkaas sida shaaca laga qaaday waxaa directorka ama writer oo sheekada qoray Silver Gafan. sidoo kale filimkan xisaab badan waxaa shaaca laga qaaday Dhanush inuu markaa ku matali doono double roles ama laba door kala duwan. filimkan uu ku matali doono door khamaji iyo doorka markaa iska dabacsanaan filimka ku matali doona. sidoo kale muuqaalkan waxa uu soo haray filimkiisii markaa Faathi markaa sidoo kale wuxuu ku dhawaaqay filimkiisa cusub markaa lagu magacaabo Nani Farufeen. sidoo kale filimkan September 7 ayaa la daawan lahaa, balse filimka dib ayaa loo dhigay halka filimkan muusikan komposiska isku dabareeday ninka loo magacaabo Fashanka Raja. sidoo kale halka Yogi Babu filimka door dhameystiran ku leeyahay. sidoo kale shacala laga qaaday filimka iskugu jiri doono film action iyo markaa shactiro habban taala loo dhigay. sidoo kale filimkan waxa kala soo muuqan doona ninka lagu magacaabo Ili Arfan oo filimkan wax faaltami doona ninka lagu magacaabo Dhanush. sidoo kale filimka Dhanush shoot farabadan ayuu gelinaya. sidoo kale filimka waxa shacala laga qaaday in lagu daawan doono luqadaha kala duwan ee markaa laga hadlo Hindiya 5 luqad ugu waaweyn sida noqon lahaa Hindi, Malayalam iyo Telugu. sidoo kale Canada ayaa filimka lagu daawan doona. wuxuu noqon doonaa film ban India movie oo markaa shacab ku qabsan doono xidiga lagu magacaabo Dhanush oo ku qabsan doono dhanka tiyaatarada markaa fanka Hindiya. sidoo kale actarkan aad ayaa lagu amaanaa jilinka markaa heerka sare ka sameeyay shaashada. sidoo kale filimka laba door kala duwan ay filimka ku matalaya waana saameyn badan tahay. waa markii ugu horeysay filimka actarkan uu ku matalay laba door kala duwan shaashada. filimkan wuxuu noqon doonaa film ku qabsan doono Hindiya maadaama filimkan aad loo amaanay. sidoo kale filimkan waxaa laga soo bandhigay kaartooyin u gaara marka ninka lagu magacaabo Dhanush oo markaa xarakeynayo. sidoo kale markaa kusoo jeedana taageerayaasha markaa uu leeyahay Dhanush si markaa filimka hadalayntiisa aad u xoogsato. sidoo kale bandhig cajaa'ib badan markaa uu ka sameeyo dhanka shaashadaha. asxaabta intaas ayaa ku cusub barnaamijka maanta inuu kula wadaagnay afarta film hadii noqon lahayd Dhamaka iyo sidoo kale Faathi iyo filimka lagu magacaabo Fane oo markaa hogaamiyay Dhanush. asxaabta muuqaalkan intaas ayuu ka higay. fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka like noo saar. waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.